waa maxay e-government? Sanadadii u dambeeyay dawladaha adduunka waxay si xawli ah u bilaabeen fududaynta iyo casriyeynta shaqada iyo adeegsiinta muwaadinka iyagoo ka faa'iideysanaya tiknoolajiyadda casriga ah iyo internetka. Hayaankaas waxaa loo bixiyay e-government. E-government waa eray tilmaamaya nooc kasta oo shaqo ama adeeg dawladeed oo ku tiirsan tiknoolajiyadda casriga ah laguna fuliyo internetka. Adeegyada e-government suurtageliyay waxaa ka mid ah in adigoo isticmaalaya kombiyuutarkaaga ama moobilkaaga aad adeegyada dawladda hesho sida inaad codsato kaarka caafimaadka, warqadaha dhalashada, laysimada kala duwan ama bixiso canshuurta adigoo jooga gurigaaga oo aan tegin xafiisyada. Adeegsiinta muwaadiniinta oo fududaata, horumarna samaysa, xog isweydaarsiga iyo xiriirka muwaadinka iyo dawladda oo tanaada, dawlad wanaagga, yaraynta musuqa iyo daahfurnaanta oo fiicnaada. Xakamaynta cudurka COVID-19 ayaa ku riixay dawlado badan inay adeegsiinta muwaadinka ku bixiyaan tiknoolajiyadda casriga ah iyo internetka. Adeegyo badan oo muwaadiniintu u tagi jireen xafiisyada dawladda ayaa hadda laga codsan karaa internetka. E-government lagama hirgelin Soomaaliya, waxayna adduunka kaga jirtaa waddanka 190aad oo ah halka ugu hooseysa dhanka hirgelinta nidaamka e-government. Iyadoo waddanku haysto isgaarsiinta iyo internetka ugu raqiisan Afrika, tirada dadka isticmaalaya internetka ay si xawli ah u korayso. Bal suurayso adigoo adeegyada dawladda sida dhalashada, laysimada, shatiyada iyo adeegyada kale ku codsada moobilkaaga adigoo gurigaaga jooga oo aan tegin xafiiska. Haddaba, taageer in la hirgeliyo nidaamka e-government si aan u helno faa'iidada nidaamkani leeyahay adduunkana ula jaanqaadno. Nagu soo biir booqo webkeena www.baredo.org, sidoo kale booqo baraheena bulshada. Fariintan waxaa idiin soo gudbinaya Baredo Platform oo dhaqaale ka helaysa Sibesa ama CIBESA.